Baati inta waxaa ku yeesana maaskeena timaha maaskan wuxuu ka dhaxeeyaa haddii aan xasuusiyo gabdhaha cusub dadka timaha badan iyo dadka timaha yar inta buu ka dhaxeeyaa hadda halkan waxaa ku fiiqanaa karooto hal xab weyn ah haddii yar yar yihiin laba xaba kuugu filan basasha hal xaba weyn ah kuugu filan toonta laba xaba yar yar ama hal xab weyn ah kuugu filan baamiyahan todoba xaba lix xaba intaas kuugu filan marka toonta iyo basasha waaye waxa aan rabin inaa badsataan maxaa yeelay toonta iyo basasha waxay keenaan in maqaarka uu xanaaqo ama dhaawac uu ku geysto nabro kale ay ka soo baxaan ama in qaarkiin xasaasiye ay ku qabaan marka ha isku daahinina baamiyahan waaba nii sheegay markuu kaligiis yahay 30 daqiiqo ka badan timaha looguma talagalin inuu marsanaado maadaama hadda karooti iyo basal iyo tuun aan ku darsaneyno 45 daqiiqo waa inaan ku heynaa madaxa ka badanna mala ogolo oo maxaa yeelay baamiyaha timuhu aad u jilciya marka ilaa heer waxaa gaaraysaa timihii ay siibmaan hadhowti marka iska ilaali insha Allah intaasna xasuusin waaye 45 daqiiqo ku haynaysiin ana wax kale ma sameynin intaan nii sheegay jarjaray oo isku shiida wax yar biyo ku darsaday marka aad biyaha yoo nigaga badanin hadii biyaha uu ku bato ilaa faa'iido ma lahan uu dhareera ama dharkii uu ka haleena oo zaaid ah marka waxaa rabaa sidii cilaanka oo kale inaadan aad u adkeenin laakiin xoogaha ay israaraacayaan oo kale ay dhareerayso kale inaad ka samaysatid markaad intii shiiday oo baaquligan ku gadisanay kadibna waxaa ku daraa wax yar oo saliid ah mar walba waxaan xasuusinaa maasada samaysanaysiin in saliid aad ku darsatiin timahan waxaan idhaa intaan maaska la sameeyay ka hor hala soo dhaqo hala soo kuskuso shanladan iska ilaaliyo xoog yaa loo shanleenin hadii dib idin si xasuusiyo maalinka laba mar hada timaha shanleysid aad duubtid tima jajabka xitaa waa ka yaraanayaan insha Allah saasna ku dadaala haduu Ilaahay yiraahdo marka meel aadaysiin israaciya laakiin inta kale iska kuskusa